السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوماليلاند 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 ciidan ka qaranka waxaan noolaado maanta waxaan noo farxada inaad kala soo qayb galno shirkiina taliska guud iyo qaybta oo shirkiina caadiga ahaa maanta si kadisa inaad kala qayb galaabaan jeclaysan waxaan idinku nimidoon maanta u nimidoon waxa weeye inaanu iska wareysano xaaladda dalku ku jiro warka dalka jira ee ugu weyn waa cudurkan adduunka oo dhan ka yaabay shalay baan ka hadlay waana ka dhageysteen warka wixii aynu war ahaay macluumaadku ka haynay xalay baan ka hadlay ciidamadana in si gaar ah loogu yimaado oo loo sheego hawsha ka sugaysa iyo hawsha kaga aadan baynu nimid intaanan taagelin qaybtan waxaa la yiraahdaa qaybta 31 talow 31 kaas xagu ka yimid 31 May waa habeenkii la dilay aadan shiine iyo ninkii macalinka ahaa qadarka ilaahay waxa ku soo beegantay 31 May 1988 waa habeenkii Hargeysa la soo galay ee cadawga laga xoreeyay qaybtan magaca weyn bay leedahay sakale ee joogta burcaana qaybta weyn ee burca joogtana waxa weeye maalintii koosaar la dilay magaceedu horta daayirta ku soo beersay ciidanka marka dambe way taa ogaada nasiib wanaag raggii maalinta labada cisho goob joogo oo haran waa madaxdiina oo waa kuwan wali caafimaad qabay xoog ah ee soo taagan oo doolar ba kamid ah wala bariga baan soo joognay iyo rag badan oo kale halka ka muuqdo dhamaantood raggii maalinta goob joog wada ahaa marka horta qaybaha dhalinyaradu magacoon bay maqashaa magacaashaas ku fadhiyaan taariikhdaas ilaa labadii qaybood magaca ay siteen 31 iyo 12 ba labadii magac iyo labadii hariye loogu magac daray iyo taariikhdii u ahaysaan xilkooda labada taliye ee labada qaybood iyo rag badan oo kale waxay ka mid noqdeen dadkii u horeeyay ee lagu siiyay biladgeesi iyo bilad hawlgalba biladahaba ciidanka qaranka ugu horeeyay taariikhda qaatay waan magacaysteen waxa la mid ah qaybaha jooga frontka oo dhan taliyaashooda way la wadaagaan laakiin marka magaca la soo qabtirnayo la magaco waa weyn oo xil dheeraad sidoo hadaa tiin koobistanaad iyo 12aad marka magacayaasha qaybayaashu saasay wax ugu fadhiyaan mid walba taariikh hadii dib loo tiriyo dhamaantood laakiin labada waxaan soo qaatay waa labada magaca ugu horeeyay iyo labadii dil ee cadawgu si gaadma ku dilo laba ciidanka xoreynta Somaliland ee sanam iyo ciidanka qarankaba ee ugu horeeyay ee cadawgu dhuumasho ku dilo saakana maxaa dhacay xalayna maxaa dhacay sidii ragaa loo laayay shiire iyo koosaar iyo xalayna taliyihii ciidanka amniga ee la ascaanood ayaa cadawgu dilay ilaahay ha u naxariisto qarankana sabriyan ha ka siiyo qoyskiisa carruurtiisa sabriyan Allah ka siiyo cawl khayr barka maanta waxaan taariikhda idin xusuusinayaa dilka xaakimkii ka horeeyay iyo ninka taliyaha amniga xalay wuxuu la mid yahay dilalkii maalinta dhacayo kale cadawgu kolba meel buu ka soo galay markuu kaaga quusto inuu toos kula dagaalamo oo ku soo weeraro wuxuu kugu dayayaa gaadmo iyo dhuumasho oo ka xun dagaalka foolka waxa hubaala cadawgu markuu imika ku dayayaa nin gurigiisii jooga ama masaajid ka soo baxay sidii xaakimkii oo kale marka xabad madax laga rufanayo la dhuumanayo fulinimo tahay waa markuu ka quustay inuu dagaalkaaga hor yimaado horta taasi waa dagaal lagu soo kordhay haloo diyaar garoobo waa xusuusin waxaana la tooganayaa kolba nin waxa la haldoorku waa ninku cadow ka baqon ba haldoora cadowgu ninka lacag aan waxba wax ka doonaya meel iska fadhiya danka ma lahayn ninku ka baqayo buu doontaa marka cadawgu cidda uu dhuumasho u dilaya ama uu ku soo dhawaanaya waa ciidamada noocay doonaan bahaade marka ciidamadii maxaa ku waajibaya ciidamadii waxa ku waajibaya qaranka iyaga waa deyr imika xeradan dhisan deyrka ka wada weyn oo wax bay laga ilaalinay xafiisaduna shaqeyn maayaan hurdana la seexan bay hadaan deyr ku jirin marka ciidamadu waa deyrkii dhawrtada baalka iyo tuuga iyo liba xilaalay marka cadawgu wuxuu raatanayaa waa ciidamada sidaa darteed ciidamada waxa kula dardaarmaya inay feejignaadaan
xero joogga badiyaan dhexgalka dadka iyo meelo dagaan aan laga helin dee ee aad digtoonaataan noocooda ciidamada taasi waa frinti gudaheediisu hawshii hore qaranka u haysteene hore ee ilaahay idin dira idin karsiiyey ee guulaha badan ka keentay waxaa ku xiga maanta xanuun ka soo kordhayna waan ka hadlay shalay iminkana taliskii guud waan ka hadlay isagana waa loo diyaar garoobaya dal waliba wuxuu ka badbaaday xanuunkaa iskaga helayaa awooddiisa ciidan ee dalka xakamayn karta marka dhacaan xanuunkaa waa loo taaglayahay adduunka o dhan wuu ka yaabay insha allahu ilaahay waxaanu ka baryaynaa marka hore inuu naga nabadgeliyo hadduu keeno inuu aafadisa naga yareeyo waxaanu doonaynaa inaynu u diyaar garoo dhammaanteen oo ciidankuna taa ku baraarugsanaado oo hawlihii hore hayseen labada dhiilaa soo kordhay taa xanuunka iyo taa cadow gaadmada la yimid inuu labada ka digtoonaano farintaan idiin sida waa intaa inaad kala qayb galna maanta shirkan aad iyo aad u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu